faquuqa ka jiro Soomaaliya waxay la mid tahay ama kasii xun tahay kan South Africa haddaan caddeeyo kan South Africa waa qornaa laakiin Kenya ma qornaba caawadoodeena waxaanu ku lafaguraynaa heybsooca iyo cunsurnimada oo arin in muddo ah waa dhaqanka Soomaalida qayb ka ahayd haddaba waxa muddo dheer soo jiray in dadka la sooco loo geysto dhibaato jireed iyo mid maskaxeed mana muuqato ilaa iyo maanta mid laga gudbay inay tahay arintaasi haddaba maxaa hortaagan Soomaalida inay isbedel dhab ah ka gaaraan dhibaatada heybsooca iyo cunsurnimada barnaamijka caawa waxa marti inoogu ah injineer Yarow Shariif Aadan iyo Barqad Jaamac Batuun oo jooga magaalada Hargeysa injineer Yarow wuxuu la joogaa stuudiyaha aan ku sheego horta hadalkii aan rabay inaan iraahdo marka horta Soomaaliya haddaan eegno 60meedii ilaa hadda madaxweynayaashii soo dhaafay ilaa hadda isku si ay u arkaan faquuqi waxay u arkaan si caadi ah ma dhici karto annaga waxaan ka tirsan dadka Soomaaliyeed baan tuuda dhibaatada aan sheegayno tooyar ma faquuqa ka jiro Soomaaliya waxay la mid tahay ama kasii xun tahay kan South Africa haddaan caddeeyo kan South Africa waa qornaa laakiin Kenya ma qornaba waayo meel kasta haddaa eegtid ka dhig qabaa'ilka naftigooda qaarkooda waxaad arkaysaa qabaa'ilka koonfureed waxaad arkaysaa digil mirfla arkaysaa waxa arkaysaa reer baraawad arkaysaa waxa arkaysaa maaragtay biimaal baad arkay kanad arkay jineed arkay dad jareer oo degan oo deegaamo ku leh haddii jareernimo la sugu yimaado wax xuquuq ay leeyihiin ma jirto haddii abood qoobsi la yiraahdo nimankaas un baa wax la siiyaa deeq waxbarasho haday timaado hadda iskuul soo lama furin nimankaas agtooda waxba kuma laha qadiyadda weydiisay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan mashaakilka haysta haday tahay colaadaha dhexdooda ka huran haddii ay tahay dhaqaale xumada haddii tahay isnaca dhexdooda haddii ay tahay qaxoontigii dunida ku noqdeen hadaa maanta Soomaaliba laga hadlo in sunta dunida noqdeen وعقوبooyinka ummadda laga gelayo ayaa qayb ka ah marka haybsooc way dhacdaa dunida way ka dhacdaa waxa ka dhacdaa maxay tahay dalalka ay joogtaan ama Yurub ha ahaato ama Ameerika ha ahaato ama waxaan la isku haybsoocaa aragtiyo waxaan la isku haybsoocaa diimo waxaan la isku haybsoocaa midab waxaan la isku haybsoocaa waxa weeyaan waxba kala duwan oo fara badan oo nolosha taabanaya laakiin teena gudaha markaan ku soo noqono Soomaali meel kasto joogto waxay isku wada khilaafsan yihiin danahooda khaaska ah laakiin halka qadiyadeed ay ka midaysan yihiin waxa weeyaan ayna isku khilaafsaneen waa dib gaarsiinta dadka la diinta la deegaanka la walaalaha la midabka la aragtida la luuqada deegaan kasto Soomaali ay degto ceebtaasi kama reebana waa aragti ay ka siban yihiin oo atawaasow bihi qolada kufaarta hay'adda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waraha warmiye isku dardaarmeen hadallada noocana marka dawa mashaakil runtii in la koro oo umadu korto oo bislaato oo dunidu soo socotay in la arko oo yaani ma aragtay Soomaaliyeena maskaxdeeda iyo ma aragtay aan korayn baa muuqata waa mashaakil runtii u baahan siyaasad weyn marka waxaan baan ku ururinayaa